السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام دمان أصحابتي قالقة أصحابتي قالقة سيتهين ما في عنتهين من ما تقبتين إلهي إذن كيسو إذي رجينا مركزو أدونك جوبتان إيسو دواذا نوسو دواذا أغيار تشربت القيري فرحة السو دواذا أسخصو نقط كل وناكسن وماموانو إيا مركلة إيا جنال كيني ماموانو إيا أصحابته سو دواذا welcome أسخصو نقط كل وناكسن saad igu ogeed xaalka waaye ama saa igu ogeedeen weli sanka ay xiran allaha qafiifiyo aamiin qof walba wuxuu tabanayo labo kala barida kala war la aleeriyo asxaabtayda qaaliga qof walba sida uu waxu yihiin si kheyr la allaha ka dhigo aamiin allah noo siyaadiyo kheyrka su'aalihii reer dabiiba inoo socda iyo barnaamijkeeni ku naso soo dhawaada ku nasta waa lecture hadba intay inoo noqoto insha allah tan waa 25 minute 25 second soo dhawaada welcome haye qolka waxaan kobcinta wixii nafaqaa kala xiriira wixii dhiirigelina wayna kana walaalaha memberka ah baa nafaqada arki karo ka raali ahaado walaalaha mar walba inta ii soo ordadhahayo ma arko nafaqada waxna waa private waxna waa public wixii dhiirigelina duco lagugu kabo waa public ka qaado channelkan haddaa saaxiib la tahay wixii dhaafane haddaad balan iga samaysatay oo programka aad ku taxan tahay qaybta hoose dheefta ku soo dhacaysa caafimaad ku cun ku caab ku ceesh soo dhawaada idii sheegaba waa qolka ugxaan kobcinta ee reer dabiib arrinka loo yaqaan asxaabtayda qaaliga kobcinta ugxaanta xagee laga maraa mase la kobci karaa dadka qaarkood ma ogo haa asxaabay waa la kobcin karaa wayna daciiftaa meeshii laga rabayna way noqotaa maxaa daciifiyo si looga foorjignaado kulley waxyaabaha qaarkood haddii aad fahanto ood u fadhiisato insha allah u jaan qaado kabacdi isbeddelkeeda u fiirsato unbaad usii bogi kartaa ama aad joogtaysa kartaa sax so ducada number 1 qof walba wax allaala wixii lagu dhaqaaqayo in loo duceysto way fiican tahay so duca badno insha allah allaha ku aqbale tan xigto insha allah nafaqada qof walba wuxuu cuno ciidamiya been maaha haddaba markii la kobcinayo nafaqo baa la cunaa hadda hadal miya wax lagu kobciyaa kaligiis ragii dumarba qofkii wax loo qabanayo wax kheyr la allaha nala qabtee so nafaqo qof walba wuxuu cuno ciidamiya been maaha meesha meel dhiirigelin waaye meel saaxiib meel dhageysi meel iswaraysi soo dhawaada waraysiga qaarkood waa gabdhaha su'aalaha soo weydiiyay su'aalahooda jawaabtana dhageyso hadalkooda dad wax ka fahanto ku sii dhaqaaq insha allah su'aalo badan ay gabdhuhu qabaan allaha badiyo barakeeye intaan ka gaaraan ka riixa ma wada gaaro ummadda allaha badiyo soo dhawaada welcome soo ugxaanta ma daciiftaa haa hadday daciiftana maxaa dhici karaayo so lasey ilma isku diyaarinaysa ilaahay baa bixiyo jaaniskii uur qaadista waxa yaraanayo jaaniska uur qaadista haddaa caadi isku diyaarinaysay oo wax dhaqtar privatena u tagtay ayaadan ku tala jirin oo intaad isbaarta lagu yiri ugxaantaada waa daciif xoogaa su-aashaas wax soo noqnoqday noqonaysaa talo seen ku kobciyaa sax so dinka baarid haddaas IVF u socotid ama wadankaada ka samee ama meel kale ka samee ugxaantaadina ay low tahay oo aynan ahayn xataa possible in lagu sameeyo IVF treatment taasuna qofaan u socon inay la mid tahay because you go nowhere with low quality eggs ugxaan waxtarkeeda loo yahay meel dheer lama aadi kartid laakiin waxaa la yiri nafnoo lagama quusto taasuna waa run waayo haddaad barato wixii u roon dabadeed isku baxnaaniso isku dabiibto inay kuu soo korto ugxaan healthy ah waa macquul nafnoo lagama quusto waa mahmaah aad u wanaagsan ee Soomaaliyeed maasha allah baryada allana sidoo kale soo dhawaada welcome meesha meel dhiirigelin waaye saa idii sheegaba anigu waxa aan ka hadlayo ummadan kala shaqeeya waxtarkeeda wixii dhaafa dhanka hoose iyo qolalka qofkii memberka ah wixii dhiirigelinana inta iyo xaggaba gabdhaha xagga fadhiya intana way fadhiyaan way la sii socdaan dhageysiga
lecturada YouTube lecturekooda ama faahfaahintooda u qaaska ah articolka nafaqada aan markaas sido linki ay ku gadan lahaayeen faallada siday ugu fiican tahay cashirka dabiibka saas u yaalaa wixiiba haddaa hesho inaad iga maaranto ayaan ugu talagalay ood horey usii raacato okay dhiirigelinta inoo wado waa ugxaanta hadday damage tahay dib u dhacaa imaanaya ama gaab ama faraq ama waqti habsaan hadday shaqaynaysana afkoos waa in loo duceeyo ilaahay inuu hirgeliyo ilmo khayr qabo oo caafimaad qabo kaaga gunto aamiin so ugxaanta waxyaabaha daciifiyo xanaaqaa ka mid ah dhafarkaa ka mid ah baahida iyo oonka ilaahay nama bado gaajo nafaqa la-aan ama jirka uu ka dhammaado waxyaabaha loo yaqaano essentialka ama nafaqooyinka caawiyo hormoonka allahna caawiyo ugxaanta way daciiftaa mararka qaar waxaa la yidhahdaa way hurudaa mararka qaar waxaa la yidhahdaa gudaha kromosoomkeeda ayaa damage noqdo wadooyin kala duwana loo maraa ogaashada xaaladeeda gabaraan ukun haysan ama ukumaheeda aynan koraynin levelada laga raba aynan tegaynin uur qaadistaa ku adkaato hadday damage yihiin sidistaba waayo wuxuu waa damage sax baabuur 3 lugood kuma socdo haddii 4 loogu talagalay sax laakiin haddii baabuur dhaqaaqo loogu talagalay 3 lugood ama 6 lugood Soomaali mahmaad tiri hanqaraarac laguma hintiyo so still wuu u liicaa laakiin marmaraa jirto lugta gaariga laga maarmo so haddaad isticmaashid nafaqa aad u fara badan hormoonkuna maasha Allah wuu isku dheeli tiraa haddii mid in yar uu xoogaa hoos u naaqusan yahay laakiin sidaada kale aad joogjoog tahay wuu kaafinaa waa adoo dhar badan haysto oo hal shay ama 2 shay iska tuuray ama qof siiyay amaba aan dib dambe u isticmaalin ka tanasulay ma dareemaysid because dhar badanaa kuu buuxa sax laakiin hal shay adoo haysatid ama 2 shay waxina tuurtid ma awoodid because wax kale xirataba ma haysatidoo waad aradan tahay so ugxaanta markay nafaqa ka aradan tahay ma kori karto jirkuna ma haysta tabaro kusoo tufo so gabdhaha inta lagu yiri ugxaanti waa daciif laakiin aan waxbaba ka qabanaynin indhaha uun ka fiirinayo taasuna waa 2 go'aankeeda koobaad waxay tahay waxba kama qaban karo waxba uma ogoli waxba uma haayi xataa cuncad inaan bedelo carabkayga dhadhankiisa way igu adag tahay maxay igu xaqsaday inaan bambeelmo subax kasta miiro anoo shaah cadeys oo sokor la heli karo so kama heli wax liin inaan cabo adigoo maraq iyo waxaas cabaay iyo qudaar anoo malawax iyo ma arkin xalwo isku duuba karo ha maraqii qudaar igu xaqsada iga dhaaf lafa ma karkari kare adoo jimicsi iyo jirka ku qurux badan heli karo iga tag maxaa igu xaqsada 2 barkimood saaro dhinac lacag ku dheh ma boodboodi karo dhidid iyo waxaasna kama baxay iga wad waa exactly like that hadday noqoto nafaqa toba u gad xil lacag iga baxaysa wixii baabaa ayday jirtaa isla qof kale dantiisa oo dayacaysid dantaadii oo aad u dayacaysid sida qof kale dantiisii waa saas way gabdhuhu isku mid maaha qofaan nafteeda heelan u barashadii badbaadidii raadintii gadistii cunistii diyaar u albaab walba inay u garaacata danaheeda qofna wixii hor yaala xataa ay awoodi kartana waxaa lagu itixaamay inay tiraahdo iga dhaaf marka qaarkood yes iga dhaaf waa dhihi kartaa waa kala leexan kartaa laakiin mararka qaarkood waxaadan soo celi karin waqti aan lumide 5 sano 6 sano 10 sano dhumisay intaa laaglaagsanaysa mana awoodid hal mar unba waaga kugu bari karaa adoo 50 sano laaclaacay deen maxaa laga gaaraa wixiiba aad u wada liiteen waxay kugu noqonaysaa dadaalka waxaan kobcintaada 2 laab 3 laab 4 laab 5 laab waayo 50 years old nearly 50 baa tahay 10 sano cimriina maxaa la rabaa 1 sano by the time 5 sano waday oo aadan habeen iyo maalin u kala hakad yeelin already 55 aad tahay jirkuna ma kaftamo that's why idin dhahaa maskaxdu ma kaftanto biological time wax la yiraahaa jiro oo gudahaaga oo cabirayo even gabowga intaad jirtid
so inta ay yar tahay nafaqada jirka bar, farxadda bar, ducada, hurdada, jimicsiga, caloos bixinta, nafaqa qaadashada, isku roonaashada insha Allah Allah kula garab gale. marka daas waa idin leeyahay ugxaanta oo daciifa haddaad jirtid ma aqaani 26 27 haddaad si kasta xataa usoo laaglaagsatay 5 sano still hadda leeba jirtaa maahano 31 32 weli gabar yaraa tahay 5 sanona runtii dhag jalaq uma siinin allaha kula garab galay adoo 32 sano dhammaan waxaan wadno oo dane allaha nala garab galo 31 32 adoo aadaa dhakhtarka u tagto age-kaba haddoo maqla dhakhtarka automatically wuu farxaa waayo xataa treatmentiga ama waxqabadka waxaa ciyoo response sameeya jirka yar jirka weyne 50 sano laaclaacay dhakhtarka kaa naxaa because dhakhtarka will think this not my happen gabartan waa diyaar nafaqay diyaar u tahay bacrimisay diyaar u tahay wax walbay diyaar u tahay laakiin boodigeeda may not help inta badan raali gelinaa kuu diyaaro in lagu yiraahdo sorry waxba kama qaban karno marka intoona waqtigu soconin adiga wax qabso oo dhoojin wanaagsan soo dhawaada welcome programkeena dabiibi dadaal ee private-ka ah waxaa idinka codsanaa walaalaha mar walba dhaa ballanaan rabaa qoraal ka soo diraayo qoraal ma aqbalo haddaa qoraal soo dirtid waxay ila tahay inaadan isla tacaal toos u baahnayn oo maamada la xiriir nambarka youtube-ka yaallo qoraalna u dir ay kaa tahay saas hadday dhacdo qof aanan akhbaarteeda ka hadli karin ballan dhiganaynin programkii casharadiisa u baahnayn anumaba u jawaababa ha iga xumaaninina qoraal yar haddaad meesha soo dhigto waa iska kaasii dhaafa laakiin haddaad faallo caafimaadkaaga magacaagii barashadaada meesha adduunka joogto ama soonka inaad heli kartid ka adeegashadiisa ballanta iyo waxaad iskala tacaalaysid intaba aad ii reebto haddaan ku maqlo waa kuu soo jawaabaa durbadiiba isla maalintaas inaan kuu jawaabaa macquula haddaad ballan dhigatana wada shaqayn wanaagsan laakiin gabdhaha wicidda la taagan ama isoo wac aniga idhahaayo ani qofna ma wici kara haddaa iga ballan iga samaysatid xataa xilli aan ballannay unbaan ballanta ku wici karaa adna aad wici kartaa laakiin xilli aana ballamin dan adduunya iga dhacdo marka raalli ahaada programku waa digital gurigaaga adoo joogo ayay nafaqada kuu imaanaysaa halka laga dalbadana waa Amazon anigu ma gado waa ku bari karaa bas inaad aqoon kororsato oo nafaqooyinka u fiican female hormoonka iyo ragga hormoonkooda haddii aad rabto ballantaa kuu la dhigtaa ka bacdi ayaan ka wada xaajoo karnaa arrinkaaga dhakhtarkaaga inaad u tagtaa waa muhiim horta kow inaad xaaladaada ogsoon tahay da-daada aad la socotid iyo baahida aad u qabto hormoonkaagu hagaagsan hadday tahay dhinaca xanuun ku haayo ama kaar ku haayo allah idin caafiya iyo hadday tahay ku hamiga inaad hooyo noqoto ama mar koowaad ama mar labaad insha Allah marka baahidaada waa inaa ogsoon tahay adiga dantaada haddaynan kula sii qiimo lahayn ama kula sii badnayn ama kula sii buurnayn maxaa u malaynaya ibni aadanka kale ay kuu qaban karaan adigaba haddaad arrinkaada ku koobtay wax yar ama daqiiqad yar ama su-aal yar dadkuna saasoo kale way iska kaasii dhaafaan maahana qofku ku necab yahay waayo danteedii maaha lasee anigaba waa soo maray isla tacaalka aan u baahanahay dhoodhoojinta fertility-ga iyo arrimaha iyo qaaska hubaal haddaan dib u xasuusto waxaan ka daba dhiganayo male hadday tahay aqoon aakhirka waaba aniga ku shaqeeyo hadday tahay daqli night shift aan u shaqayn jiray waayo shaqo maalin haddaan waayo habeenaa isku tuuray so qarash waxaa laalo wixii hagaajinaya caafimaadkayga diyaar dhaqaatiir gobol kale aan u aadayo saan uga soo aqbaar ogaada caafimaadkayga amaba uga fooljignaado cilad kale inayna igu sii noqonin mararka qaarkood ciladaha keeni karaayo infertility sida endometriosis iyo thyroidka iyo prolactinka iyo fibroidka iyo wixii ka jira ciladaha way sii qaribmi karaan caado kugu raagtaa xataa cilado badan ay leedahay marka intaynan cilad caafimaad darro ee sii ba-an igu noqonin intii yareedoon caafimaadkayga ka ogaa waa inaan u kaco adigana sidoo kale u kaco ilaahumaad college-na aadid ood nafaqa soo baratid ood caafimaadka soo baratid ood hadhowna adiga isku baxnaanisid haddaad u baahatidna ku shaqaysatid so go and get knowledge aqoon raadso insha Allah hadday noqoto tan kale dhiirigelinta ana waa kan adduunka cidu kaama xigto ilaahayna cidu kaama xigto
laakiin haddaa ka wahsato digsi maraqa kari ama qudaar isku jarjar ama digiro kari ama nafaqo gad ama hilibkan gaduudan ka yara leexo ama fitamiinaad fiican gado intaasba hadday kugu adkaato muu malaynaya wax kale inay kuu sahlan yihiin. ilaahay ha fududeeyo, dadku isku hami maaha, isku garasho maaha. garashada laguu sheegaa maray adiga ku qusaysaa oo wax kuu wanaagsan xataa aadan isku taxluujinaynin, laakiin aad rabto ama dadku ay rabaan daqiiqadii lagu ciriiriyo ciladaas inay baroortaan. adduunyadaada raaco, caafimaadkaagana haddii loo baahdo inaad wax ka qabato iscasuun. qof walba wuxuu cuno ciidamiyaa, qof walbana wuxuu barto unbuu raad raaci karaa. marka barashada waa muhiim. amuurta kheyr allaha ka dhiga, allaha nooga dhiga dhammaan. qofkay muhiim u tahay kelmadda ugxaan daciiftay ma la kori karaa? su-aasha jawaabteeda waa haa. ugxaan daciiftay waa la kori karaa. waa ku soo celinaa, ugxaan la yiri waa daciif waa la kobcin karaa. xagee loo maraa marka kobcis? kaniinkan kalomidka la yiraa ee waxa kugu jira oo sidoodaa bannaanka soo dhigaa looma maro. haddaad adigu rabto inaad jiib ku dul meeraysato ama wax iska abuur raqiisa ama bacrimisa ama qawda maqashii waxnaha u qabanina go ahead. kaniinkaas wuu shaqeeyaa waa hadduu dhakhtarku gacanta kugu hayo, ilaahay ka siko. ukuntana uu kaa soo guri doono, inta hagaagtayna uu kuu gelinayo fariisaha, inta kalena uu kugu shubaayo. kaligiisna lama isticmaalee, dawooyin kaloo bacrimisa lala isticmaalaa. xaajigana waa lagaa ilaalinaa. ukuntii habis wax la yiraa lagu sameeya, waa la guraa oo waa lagaa soo qaadaa. laakiin markaad leedahay bacrimis ma rabo, waa inaad dheef cuntaa si dabiiciina ukun ama laba oo u koriyaa insha allah ugxaansidahaada adigoo u maraayo nafaqo fara badan oo ayuu nooca wax la cunay wax la cabo, ilaahayna baryaayo. marka kaniinka markuu shaqeynayo waa marka adigu aad maaragtay dhakhtar ku xiran tahay oo adeeg badan laguu qabanayo ee adeeg guud badan uu dhakhtarka kuu qabanayo kuna baare. hadhowna ogow jirkaaduu ku jiraa kaniinkaas, ciladuu keeni karaa. marka wax walba riski ay leeyihiin. allay lehe ilaahay haddaad barido wax dhiba ma leh. dheef haddaad cuntane wax dhiba kama filano, already inaad dheef fiican cunto waa tii lagaa rabay. jimicsiye iyo waxyaabahaasna iyaguna dhibaato kuma ogi haddaadan isku daqrin biraha aad wadwado. tantaase qurux iyo wanaag iyo dhalaal iyo tabar iyo jirkaaga faytaal noqdo inaad ka qaado maahane wax kaloo dhibaataah oo lagu sheegaa ma jirto. marka muhiimaddu waxay tahay ugxaan daciifa ma la kori karaa? haa iyo maya. waa la kori karaa. haa, ubixii la waraabiyo waa nuuraa. ubixii la waraabiyo waa nuuraa. gabadhii la nafaqeeya waa soo rogaal celisaa. laakiin nafaqadii ma gasho ilaa inteen wadaa, lacagtu waa meeqo. naftaada waxa u cunaysid waa maanta haddii lagu yiraahdo nafaqada $200 $200 dhanaa ma gadi kara, iga wad, waana u baahan tahay. yaa la eedaa marka. laakiin haddaad shaqaysato, iskuna quurto, baratid, fahantid waxa kuu roon, gadatid, cuntid, cabtid, ilaahayna aad talada u dayso, insha allah one day nafaqada way ku gaareen. dadka qaarkood aaday u qallalan yihiin. 2 sano hadday nafaqada wadaan xataa ma qoyaayaan, waayo cimrigooda dhan ay gaajo ahaayeen. maalin ma qadinay tiri gabar infertility ka dhalatay, nafaqa darrana way ahaysaa. fahmaysa, ugxaanteedii dhanaa shuuqday. marka waxaad cunaysay ma lahayn nafaqo. hadday nafaqo leeyihiin dayac kaama muuqdeen. adi qof dhanoo cagihiisa ku tagay dhakhtarkoo dhiigaga laga qaado, dhiiglaana ku haysay, kaniinkii hoo qaada la dhahay iron supplement ma aragtay, ama feerada ama birta. gurigaagana maalin kasta qada quraac cashaa laga cunaa, dhiiglaana waa adiga la liito. maxaa u malaynaya fertility xumo marka? qof walba wuxuu cuno ciidamiyaa. nafaqooyin waxaa jirta soomaalida inay shuqul ku lahayn il iyo dhag camal isku yihiin ee fertilitygu fiican ee adduunka laga isticmaalo. dabcan dabiibkaa laga bartaa iyo qof walba coaching sameeyo oo nafaqa dadka baro. marka ku talagal aqoon inaa u baahan tahay. ugxaan daciifta insha allah haddaad korinaysid
ugxaantaada waxa u fiican barashadeeda unbaad ku heli kartaa. caado qalqal wixii u fiican waa inaa barataa, ka bacdi u muhataa, niyeysataa, hood gadataa, lacagtaada u hortaa. taas waa idiin dhahaa gabadhii xooggeeda meel la fadhida bax shaqo tag. waqtiga intuuna kugu dhammaanin orod shaqo tag, lacagtaad nafaqaad cunto ka dhigan lahayd soo shaqayso. waa tii la yidhi nimaan shaqaynin shax waa ka xaaraan. marka qofkii wax fahmi karo unbaa wax soo dhacsan kara sooma. waxaa idin dhahaa nafaqada websitekan Amazona laga gataa ani ahaanteyda, laakiin websiteyada adduunka dhan way haayaan. hadda dad qudaar gadanaysid, qudaarada waxa waaye dukaamo badanaa gada sax, ama dad badanaa ka ganacsada qudaarta. hal meel oo kaliya wadanka dhan lagama helo qudaar. luuqa ka leexataba qudaaraa lagu gadaa sooma, ama meeshii dukaamo ahba. marka waa saas oo kale, badda meeshaa ka cabti waa dhanaan. laakiin Amazonku aniga ahaanteyda ayuu dabiib iyo dadaal programka aan ka shaqeeyo ummadda ugu howl fududeeya adeega. taas waan ku leeyahay mobile labaadna waa u baahan tahay saan nafaqada saan oo kale kuugu soo shubo. laakiin waxaa la rabaa adoo ducaysanaa, adigoo dulqaadanaa, adigoo ilaahay u xamdina u shukrina waxaad already haysata dadiyo duunyaba, adoo kaydsana insha Allah nafaqada waayo aniguba kaydkan kuu ururiyaan kuu soo celinaa. iyo adoo waxaa u bogtid ee quseeya caafimaadkaaga iyo hormoonkaaga, fertilitygaaga iyo ugxaantaada u quura lacagtaada ee gadanayo. lafa oo lafaha haddaad ka doonto kawaanka oo tiraa walaa lafa siyaada isii, waxaa laga yaabaa inuu 1 shilin ka yar camal oo dhaho waayo lafaha. waayo wixii waa meel ganacsi sooma. haddaad tiraa ka warmahayo iskaga soo dhaqaaqda danadaa u baahan. haddaase soo qaadato ood dhaqatood nadiifsatood karkarsatood qudaar ku tirsato adaa ka faxfaxabaya sooma. marka waa inaa wixii u quurtaa, ilaahu may $1 noqoto, waa inaa qarash u quurtaa. waayo waxaad ugu xilanaysaa nafaqada ku jirto. maxaa u malaynaysaa adoo si top ah one of the best nafaqo in the world baranayo si aad u gadato ood ma aragtay u kaydsatood nafta ugu baxnaanido. marka wax walbo khayrka ku jira Allah na haleeshiyo oo kuma siintiin saa ii dhageysatiin. muhiimadda programka waa ugxaan daciiftay ma la kori karaa dabcan ahaa, laakiin programkaas waa private. marka qaar waxaa arkaa gabdho ila soo xiriira nambarada YouTube-ka yaala qaar ka mid soo galayo dhahayo waxyaabaha u roon ii soo dir. qaybtaas waa private, haddaadan i ballansan waxba kuu soo diri maaha, iga xumaanin. haddaa i ballansato oon kula shaqeeyo ood ii waranto ood xaaladaada ka hadashane habari waa lagu soo diraa, taas sharciga ka yaala ilaa waa adigay ballansadee. haddaan beri kula shaqeeye maaha inay tuba iiga kaa taagan tahay, wada shaqeyntii hore waa dhammaatay, ballan kalaa u baahan tahay anigoo weliba kuu fiirinayo jadwalka reer dabiib reer dadaal. haddaa cusub tahay oo akoonkaaga wax ku jira ayna jirin oo wax nafaqaa mobeelka kugu kaydsan ayna jirin, si xoog leh waa in lagula shaqeeyo oo nafaqadii aan caafimaadkaada ku maaray laheed oo dhan faraqa lagu geliyo. waayo dadka qaarkood 4 sano hore ula soo shaqeeyay 1 sano iga maqnaayeen. yaas halkaas sano wax badanaa isbedelay, nafaqo badanaa soo geliyay. haddadaana idinla hadlayo videoga nafaqaa daba socoto una socoto qolka ugxaan kobcinta. mar walba nafaqo cusub aa soo gasho, laakiin adaa waxaa lagaa rabaa inaa fahantid mobeelka la ordaysid wax ku jiro oo nafaqo qosaysa fertilitygaaga inayna jirin iyo inuu buuxo. gabdhaha qaar meeshayba ka wataan mid cusub oo ka duwan kooda ay ku hadlaan nafaqana uga buuxdo. ayagoo 1 sano iga maqnaa ama sanadii bar iga maqnaa bay hadda day reer dabiib ballan dhigtaan, haddana waxay ku leeyihiin wixii i dhaafaan u baahanahay, wixii horey waxa dambaba ii soo dir. waayo waxba kama maarmo oo u baahanahay wax walba, ducadana ha leegu kabo, danta ii taalaan ogsoonahay. soo dhawaada khayr farxad soo dhawaada, fadlan saasi fahma adinkoo mahadsan. programka privateka YouTube waxba ugama xirno, waa private means gooni waa. dhiirigelintiisana waa tanaa. waxaan kugu dhiirigeliyay ugxaan hadday daciif kaa tahay in dib loo kobcin karo haddaad adiga wax u ogashahay. haddaadan adigii lahaa aadan waxba u ogolayne dan cidnaha ku eedin. 2 barkimood isi saaro ka barkin dheerayso. haddaad leedahay ugxaantaanoo daciifoon meel la fadhiyo haddee waa u jeedaa wuxuuna sii daciifaa maahane amarka ilaahay kuma darine soo kobci maayaan. marka tinka baarid dhulkaas hadduu abaaro ka dhacda doog kama soo baxo. waa dhulkii ilaahay roobba kama dhicin laakiin mudoogu iska soo baxo. maqaadirta ilaahay waa soo bixi karaa oo geedo meel aan roob ka dhicin iskaga yaala way jiraan, laakiin doogga iyo ubaxa dhulka ka soo baxo baadu u baahan yahay iyo biyo sooma.
biyi haddii la waayo baad sooma baxo marka saasaa loo fikiro farxadda ducada nasashada jimicsiga qiyaasta ah cunada fiican fitamiinaadka ku habboon dhirta ku habboon waa haddii loo baahdo inta horena jirka inuu iskiis u shaqeynaa ogaada marka lasoo roonaado ama jirku ay nafaqadaro saameyso unbaa dhuudhuujintaa loo baahan yahay I love you so much lagjarkeena intaasuu ku egyahay waa inoo ii ka kale hadduu ilaahay ka raali noqdo saaxiibtinimo wanaagsan soo dhawaada dhammaantiin